xildhibaan Faysal Cumar Barre Kartuush oo kamid ah xildhibaanada dhawaan la soo doortay ee golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ayaa munaasabad ballaaran ugu mahad celinaya taageerayaashiisa iyo madax dhaqameedkii u soo xulay tartankii doorashada ee uu dhawaan ku guuleystay ku qabtay hotel Martisoor ee magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabadaasi oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen taageerayaashii u codeeyay xildhibaanka madax dhaqameed waxgarad haween gudoomisada garabka haweenka ee xisbiga kulmiye iyo xildhibaan Cabdifataax Cabdilaahi Huruuse ugu horeyn halkaasi ka hadlay una mahad celiyay cid kasto cod iyo cududba isla barbar taagtay ee xildhibaan Faysal Cumar Kartuush marka waxa idin leeyahay waa mahadsantiin aad baa u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba maadaama aad dhaafiseen qayrkayo waayo qayrkayo annaka waa siman waa kor nooga qaadeen marka annana waxaan rajaynaynaa inaanu kor idin qaadno oo tan kale hadda dhowr jeer ba waxa lagu soo celcelinayay war bal cadaaladda ilaaliya haddaan cadaalad ilaalino hadda waxba heli maysaan laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaanu cadaaladda ilaalino oo cadaaladda maxaan ku ilaalinaynaa wayna la sinaataan Ceerigaabo degmada Ceerigaabo saasaanu cadaaladda ku ilaalinaynaa inkastoo marka la doorto dadka ay yiraahdaan war hebel muxuu meesha ka qabsaday aniga Cabdu uma socono inaan wax ka qabsano meesha laakiin waxaan u soconaa dadka degmada Ceerigaabo inaan wax u qabanno dadka marka la doorto laba qodob ay mid ka tagaan mar waxa la yiraahdaa habaar ku dhici baa waxa naga tagay mar waxa la yiraahdaa duca qabo ahaayo war ninka duca qabaha marka bal noo ducayeynaan duca qabayaasha ka mid noqono waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii waxgaradkii haweenkii iyo xubnihii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi kuwaasi oo la sii dardaarmay xildhibaankaasi dadkii Faysal codka siiyay kuna soo saaray fartooda iyo kaarkooda dhammaan waanu mahad celinayaa marka labaadna waxaan leeyahay jasaakallahu khayr Faysal waynu soo saaray maantana isagaynu u jeednaa dhammaanteen anigu idin ka mid baanahay inagoo isku duuban Faysal baynu u jeednaa ilaahay ha inaga jasa siiyo waana idin ducaynayaa dhammaantiin xildhibaannimaduna way ka baxday waqtigan oo kale beela way ka baxdaa xisbiya way ka baxdaa waxay u gudubtaa nin qaranka anfaca oo gobolka anfaca oo dadka anfaca marka waxaan kula dardaarmayaa xildhibaanada meesha fadhiya inay xildhibaano qoys aanay noqon xildhibaano qaran noqdaan wax badan baynu inagu u soo ololeynay oo u soo taagnayn maadaama aynu soo saarnay wuxuu inoo sheegi doonay wuxuu nagu ballan qaadi doonay isagaynu ka rabnaa Faysal de waa nin aqoonyahana waa nin aynu garanaynaa waa nin reer Ceerigaabo ah iskuulka Ceerigaabo ka galay Ceerigaabo ku dhashay ku koray ku barbaaray hadda joogo xildhibaanka waxqabadka degmada Ceerigaabo sheegitaankeeda iyo wuxuu u qabanayo dadka iyo deegaankaba isaga ka warrami doona xildhibaanka waxaanu leenahay xildhibaan maanta waxa tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo u soo baxay 13 ah waxaa laga jeedaa dhammaan bulshada ku nool gobolka Sanaag ama degmada Ceerigaabo ee aad xildhibaanka u tahay inaad si siman oo cadaalad ah aad ugu adeegto dariiqtoosan Soomaaliya waa laga dagay darajada Ilaahay ninkii doonaya hele ee ninkii ka duga dastuurkii waxiga diintii ka carruuye dugsi malaha qabyaalad waxay dumiso mooyaane haddaynan xumaantii dilkiyo deynii kala qaadka dibaddan kala joognaa sharciga daacadda Ilaahay xilkaad qabatay rabbigeen ha kugu asturo oo diinta ku akhriyay rabbigeen ha kugu asturo washamsi waduxa walayl baanu ku akhrinay amaana kugu xidhay rabbiga ha kugu asturo in badan baan lahayn waa Faysal oo foofaya laakiin maanta waxaanu leenahay kursigu waa ku guuleysatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha kugu asturo Ilaahay ha kugu asturo baan leenahay abti qaali anagu mar walba waxaan nahay garabkaagaanu nahay oo Muuse daadihiye iyo dawladii waday oo Muuse daadihiye iyo dawladii waday xilkii dalka nuur shay adigu ku soo dalbaday dabaal dagu wuxuu ka dhacayaa degmadii Sanaag
gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdifataax cabdilaahi huruuse iyo guddoomisada garabka haweenka ee xisbiga kulmiye xaawo maxamuud maxamed. beesha gahayle oo iskaayo barbar taagtay markaanu madaxweyne muuse biixi dhisnay waxaanu uga mahad celinanaa musharaxooda ay keeneen oo codka bannaanka ku soo dhigeen baanu uga mahad celinanaa xusbi ahaan. waxaanu idin leenahay annagu xusbi ahaan beerkaanu idinka ogsoonahay jirridii kulmiyaad tihiin sumad gaaraad noo leedihiin geediga halkaa ka wada xusbi ahaan iyo xukuumad ahaanna waxaad xaq u leedihiin waa helaysaan. u soo noqonayaa faysal cumar barre iyo cabdifataax xasan huruuso dhinac fadhiya horta waan idiin ducaynayaa xilku waa xil culus allah idinku asturo. waxaa xafladan waxaanu qabanaynaa faysal cumar barre oo garabkayga ahaa waan meel ka soo wada baxnay ama aanu jiida ka soo wada joogno misna boqorkaygiia waan noo hambalyaynayaa. idinku waad noo hiiliseen hiilkiinnii fartiinnii inaan idinku soo celino oo wax idinka weydiino waajib bayd ku tahay. waxaanu noo ballan qaadaynaa inaan wax badan horta bedeli karno ilaahay ha nala qabto nooguna soo duceeya. cabdiraxmaan ilsar saab TV ceergaabo.